wanaag haddaad ka shaqayso wanaagu aduu ku imaanaya xumaan haddaad ka shaqaysana xumaantu aday ku imaanaysaa marka intay xumaantu adiga kugu soo noqon lahayd maad wanaag adiga kugu soo noqda qabatid السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شلون كان نقدر ونسوي ويستاهل روف يعني هو يستاهل روفا عاد بني سلام دمان خيار تشرفت على ميل بدون الدلال شوفتان سبسكرايب يا لايك يا شير نوعاوية يعني ما أنتوا حربنا إنا كاير هذا الله أرينير أو ماركت يوتيوب كده احتاجن أو دلني يرضو أي إسكو للي عينيسو خاصة ماركت اسمه دانتو إيو دلني يرى كلا كسو شقيني اسمه دانتو horta run ahaantii aniga rays madanta ma ihi shaqana mayna naga dhexmarin aqoon saaidana uma lihi ka weydarsan korka qaarkooda salaan ayaana dhexmarta kore qaarkoodna ismaba naqaano okay iyadoo saas tahay haddana waxaad jirtay dad waqti hore ka tegay iyo dad waqti kaaban ka tegay anigu waxaan rabaa ismadhaanta inaan qaladkeeda siiyo dadka ismadhaanta kasoo shaqaynayeen inaan qaladkooda siiyo anigu inaan noqdo dameeridhaan raacday oo aan maaragtay dadkaan aniga aqaano iska raaco macnaha aqoon darteed u raaco lagama yaabo waayo anigu waxaan rabaa inaan xaqiiqada iyo maaragtay sidii uu wax ku hagaagi lahaa la sheego okay haddii aan kasoo bilaabo macnaha ugu horeysti qofka ugu horeey oo maaragtay inta aan aqaanay ismadhaanto ka taga wuxuu ahaa shacni baby ismadhaanta horta waxayna dhaheen ruul ayaan leenahay ruulka aan leenahayna waxa weeyaan qofku haddii uu channel samaysto wuu ka tegayaa sidoo kale waxaan leenahay haddii laba qof oo xidhiidh maaragtay kooxda ka tirsan xidhiidh dhex marana shaqada way ka tegayaan okay ruulal badanoo waxaa jirta dadka ay samaystaan ruulkaana hadday shaqo qof kaga eriyaan ceeb maaha bakasof waa ruula iyagu dhigteen hadalta shacni animaan shacni horta channel ayay furatay channelkay furatayna shacni ayuu ahaa markii dambana qabya ayaa loo bedelay oo koox ayay ku ahaayeen sax shacni wuxuu ahaa xumaatada ay maaragtay kaga tagtay ama ciriiriga ay ku hayeen ree ismadhaanto inay shacni channel furatay channelka darteedna ay shaqadii uga eriyeen maadaama channelka la kasoo jeedsatay shacnina sidaas ayay uga tagtayba markay ka tagtay alxamdulilah channelkeeda koox ayay noqdeen kooxdiina heer ayay gaadheen markii heer gaadheenna dee bili aadanku way isku dhacaana wayba kala tegeen iyaga laftirkooda waayo qof walba qofka kale wuu ku dhacaa soo ma tusaale ahaan way isku dhaceen ismadhaanto wayna heshiiyeen talabaad ismadhaanto tiim ahaan maaha laba nin ayaa iskale labada nin hadday isku dhacaan waayo waa bili-aadan way isku dhacayaan hadday isku dhacaan hoos bay u xalistaan arrintooda shaqaalahooda ama dadka la shaqeeya ama dadka maaragtay markaa shaqaal ahaan u aha u imaada ayaa maaragtay wixii bannaanka ee isku dhaca iyo waxaas maaragtay laga arkaa oo la dhahaa ismadhaanto way xun tahay iyagaa noo soo tabiyaan dad kasoo tegay oo xumaantooda haya xumaantooda aada uga sheekeynaya anigu waan arkay daas macnaheedu ma aha qofku hadduu aad u shaqaynaysa oo aad kasoo tagto inaad ceebtiisa faafiso ceeb bay kugu tahay ismadhaantana waxay ku qaldan tahay dee maaragtay inay iyagu dhalinyaradan markay keenaan maanta ay maaragtay iyagu qalad ay mar walbaba maaragtay maxaa mar walba iyaga qaladka la saaro oo iyagu ay wax xumaato u sheegaan waayo qofka haddii aada xumaynin isagu af kuma caayayo macnaha afka qori iskama gelinayo wax iskama soo sheegi walow ay jiraan dad xumaantada ka samaysan oo xumaato ilaahay u abuuro qofaan caayin ama xumaynin ay xumeeyaan laakiin waxaan dareensanahay qofka in ugu yaraan wax la yidhi waxna uu ku darayo haddaba dadkeenan soomaalida ah gabdhaheenan kasoo shaqayn jiray wiilasheena kasoo shaqayn jiray hadda shacni ahaan ayaana taagaynaa shacni sidaas ayay kaga tagtay aan hore usoo sheegnay haddana maanta waxay soo sheegtay inay xumaato loo geystay la xumayn jiray xumaatadaana waqtigii ma aysan sheegin channelkeeda intii soo fadhiisatay ismadhaanta ay xumaysamayna dhihin laakiin way ka socotayo waxay tiri go-aan ayaan yeelanayaayo koox baa garab qabsatay oo garabkeeda soo istaagtayo kooxdii garabkeeda istaagtay waxaa ka mid ahaa garmo shacni shumi bebe ayaa ka mid ahayd
kor ayay u kaceen alxamdulillah heer ayay gaadheen heer markay gaadheen maanta mid walba channel gooniyi uu leeyahay midna midka kale uusan u baahnayn marka adigoo shacniyay wixii ka soo gudbayba oo maanta heer kaa taagan inaad wixii hore ka hadasho waxay kugu tahay doqoni dib bay ka laba cadhootaa inaad kusoo laabato ceeb bay kugu tahay walaashay runta kuu sheegaya waxaana wax fiican maaha wax xataa views lagu raadsada maaha hadday baraanka idinka tahay iyo haddayna idinka ahaynba macnaha waxaan ceeb bay idinku tahaan idin dhihi lahaa tan labaad isma dhaanto waxa ceeb idinku ah qof walba oo idinka taga inuu ceebtiina banaanka keeno sababtay tahay waxay idinku arkay ayaa wax lagu daraya waayo anu idinma dhahayo waxaasoo dhan idinkaa leh laakiin oo dadkan kale kama dhigayo dad nadiifa waxa la idinku arkay wax lagu daraya ee iska dhaafayaan dhiila shaqaalaha qaab wanaagsan la dhaqma tan labaad ee aan rabo inaan idin sheego ka hadalo ayaa waxay tahay abwaan cayni adiga oo sheegaya inay ruulka lagu sheegay ruulku inuu yahay inay maaragtay aanan xiriir lala samayn karin ayaad gabadh la samaysay shaqadiina waa lagaa saaray saasa shaqadii lagaaga saaray inaad waraysi bixiso oo tiraahdo jacaylkayga dartii baa layga saaray ceeb bay kugu ahayd tan labaad inaad hees soo qaato oo tiraahdo reeray kala dumiyeenba iyadana ceeb kugu aho reeray isma dhaanta kala dumisay anaga maana arkin social mediahan ku jirna 24 saacna waanu daawanaa laba nin iyo laba naagood oo isqabo qoysahoo degan oo awlaad iskule oo kala eriyeen anaga maana arkin una shaqeeyo reer isqabo u shaqeeyo oo kala eriyeen anaga maana arkin waxaan arkay aqoon u leeyahay kameramaano badan oo la soo shaqeeyay way heshiin waayeen wayna kala tageen wax ceeba banaanka kamaysan keenin laakiin dadka jilayaasha ayaa inta badan banaanka ceebta keena haddaba jilayaasha waxaan idin leeyahay haddiiba aad qofka kasoo tagteen macnaha ceebtiisa inaad faafaadhaan ceeb bay idinku tahay ceebtu qofka ceebtiisa inaad qarisaan ayuu ilaahay idin faree idinmuuna farin inaad faafaadhaan waxaan iyadoo social media tahay oo markii horeba wanaag ayna jirin haddana bal inta wanaagga leh inaad qaadataan ayay ahayd sharaftaada inaad kor u qaadid tan labaad abwaan cayni waxaan leeyahay ceeb bay kugu tahay inaad weliba hees usoo qaadid heer aad hees u qaado inuu baraankeegana kula tago ceeb ay ahayd tan labaad oo hadhowto waxaan future tusaalahaan naag gabadhan haddaad guursato maanta naagtaada noqoto xaas kuu noqoto waxaani meesha buu ku jiraa youtube buu ku jiraa ilmahaaga mustaqbalkiisii baad meel kaga dhacday dadkan kale oo dhan way iska hadlaayaan waayo hadda gabadhan guursato hooyadood ilmihii way daawanayaan waxaan youtube-ka ku jiraa ceeb ayay kugu tahay tada labaad haddaa aad ilaahayba uu tan uuna kuu qorin tu kale kuu qoray way daawanayaan ilmahaagu isla midkiiba marka waxaasoo kale banaanka lama soo dhigo wax bareefad inaad yeelato ayaa wanaagsan ayaan ku dhihi lahaa abwaan cayni iyo weliba walaasheena garabkiisa fadhida magaceeda ma aqaano marka tan labaad waxaan dhihi lahaa isagana abwaan garme walaalo dameeradhaan raacday lama noqdo bili-aadanka sida saxda ayaa loo xukmiyaa wanaagga ayaa laga qaataa hal qof lama ataago hal qofna garab lama siiyo isagoon xumaantiisa iyo wanaagiisa aadan ogeyn shaqsiga maaragtay qofki iyo wax dadka qaar waxaa jirta macnaha wanaagooda korka soo mariya xumaantoodana daboolanayo anima ku dhahay maanta mid ku midahaa ka jira halkaas laakiin waxaan ku dhihi karaa markaad adi hadlayso si dhexdhexaada wanaagsan sharaf leh hadhowna eed kaa raaci karin dad magaaladii wada joogo walaaloho isyaqaano hadhowta eed way isku imaan kartaa maxaa ereygaa ka watay maxaa sidan kan inaad wanaagaaga mar walba korka soo marisa ayaa lagaa rabaa fiyuuska aad raadinaysana inuu fiyuus sharaf la ahaada ayaa lagaa rabaa dadka waxaa rabaa jaanis raadiska jaanisku inaad maaragtay qof aad shaqadiisa kasoo tagtay jaanis ku raadiso waa ceeb inaad qof shaqadaada ka tegay ceeb iyo jaanis ku raadisana waa ceeb sharaftu waxay ku jirtaa haddiiba aad isfahmi weydeen inaad kala tagtaan oo keliya wanaagna aad ku kala tagtaan xumaantana dhammaanteedaba aad iska daysaan laakiin haddaad maanta sanadkii hore saa yidhi sanadkii hore saa i tiri kanaa la yidhi waa lay eryey qofkii maaragtay isma dhaanto ka tagaba haddii waraysi laga qaado dee waxaan u malaynayaa dhibaatadaasi inay idinka un idinku soo laabanayso because of
wanaag haddaad ka shaqayso wanaagu aduu ku imaanaya xumaan haddaad ka shaqaysana xumaantu aday ku imaanaysaa marka intay xumaantu adiga kugu soo noqon lahayd maad wanaag adiga kugu soo noqda qabatid waxaan idin dhihi lahaa mar walba wanaagga ka shaqeeya oo xumaantan iska dhaafa aad mar walba midkiina kale xumaan aad u raadinaysaan walaalaa tihiin dad isku maaragtay isla soo shaqeeya ceesh wadaagaa tihiin ceeshku yoonaydan qabanin dad baa iyagoo shaqo la-aan oo masaakiina oo guryaha kiradiisa iska bixin la ay ismadhaanta shaqo siisay lacag siisay hadday shaqadoodii fahmi weyda iska eriday hadday ku eriyana maanta heerka aad maaragtay ay shaqadooda ka eriyana inaad jaanis ku raadsato looma baahno waxaa loo baahan yahay inaad si sharaf leh uga tagto shaqadaas waabad ka tagtay inaad si sharaf leh isaga aamusto ani ismadhaanto ma aqaano garabkeedana ma ihi allahay ka allah laakiin waxaan ahay qofkii saxan garabkiisa qofna ma caayayo qofna ma afragaadinin laakiin waxaan idin dhihi lahaa wanaagga mar walba maaragtay ka taliya assalaamu calaykum